بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استاذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حاول دور نفسك ما شاء الله نفسك هذا هو المرسيب كود دال وحيكو أنفعايو كود دال وحيكو أنفعايو ودنت هذا ومحيهة آد مر والبا ومحيهة أكوها المرسينيسو نولش هذا إيه مستقبل هذا محيهة كود دال ولا تعجز ولا عجز محاول إنك ليزي نقطة كسلان نقطة ood wahsato waxa qabsan lahayd aad ka wahsato waxyaabaha dadka dib u dhaca kurido fayn asaabaka shay lafa hadii wax kugu dhacaan ka soco inkastoo xanuun ay leedahay qof waxyaabaha athar waxyaabaha qaar qofku ku dhacaya ay saameyn ku reebayso law anni facaltu kada wa kada la kaana kada wa kada faqul qad maxayto fa inna law taftah amal shaytaan qofka markii uu maxay ahato uu maanta dhan saan hadaa sameyn laakiin wixii maad uma wadicin ma aan sameynin لكن كان أسميسا غير كوجرا كان أسميسا غير كوجرا مركز معي هتو نقاء ويحكو أنفعايو كود دار النبي عليه الصلاة والسلام يحرص ودرس حديث سكيلس مهاراده قاعدة السوشيال حدا لا تبكي على كون مسكوك أو أوين أنا هكذا هو كلا لسن كرتا قف قصته مسلم أو قف قصته من أنا وحيابك قصاري باجر أو كأما كفشيل مضي فدنا كم وحوا كوتو سايمك وحكاها لا أما كذا أما كفشيل مضي kahar wax kale samayso wixii markaas saameynta ee qalbigaada ku yeelan karaan intii tabartaada inaad hay'ato aad ka gaashaamato oo laana qofka xataa duu guulaysto xataa waxyaabo uusan iloobeynaa jiro waxyaabo nabi cali sallallahu alayhi wasallam ka faafiyay haddana Aisha wuxuu ku dhijir maada laqiitu min qawmi ku dhijir waxaan dadkaada waxaan kala kulmay yani qof kastoo duruu maxay guulaysto meel gaaray xanuunay alam fara badan ee qalbigiisa ku jira oo dadka soo gaaray ama ha noqdo dad ku hareeraysan ama ha noqdo dad qaraabo ama ha noqdo dad kaleento qof aan soo jabin ma hay'ato ma guulaysto marka ku dadaal mar kastaba waxa ku anfacaya waa cimriga bani aadamka waa soconaya yamdi ma ku istaagayo marka noloshana kuma istaagayso inta aan nooshahay dhinac walba noloshaada kaga faa'iideyso caafimaadkaada tacliintaada horumarinta naftaada mas'uuliyadda ilmahaada dhaqaale abuurkaada kullu shay ku dadaal wixii ku anfacayo noqon qof aan caajisin oo nolosha mar walba wajaho duruufaheeda iyo caqabadaheedana u dhabar dhigo wallahu a'lam.